محمود حسن سعد ساجن وزيرka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee Somaliland oo uu weheliyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha Somaliland Dr. Cusmaan Sheekh Axmed ayaa kormeer indhaindhayna waxay ku tageen goobta uu ka socdo dhismaha warshada daqiiqda ee Boundary Mills oo laga wado deegaanka Arabsiyo ee duleedka magaalada Hargeysa. halkan waxa ila jooga rag fara badan oo run ahaantii aan jecelahay inay dhowr yiraahdaan wasiirkii ganacsiga kamida Dr. Cusmaan Sheekh Axmed oo la taliyaha madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha kamida Mr. Sachin iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha dhaqaalaha Cusmaan Sheekh Axmed ayaa waxa goobtaas ay ku sugnaayeen shaqaalaha halkaas ka hawlgalayay waxa ay bogaadiyeen qaabka dhismuhu u soconayo iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in dalka la warshadeeyo oo wax soo saar lala soo baxo intii la timid ra'yigan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin shaqo qaran bay qabteen way wax weyn daqiiqdu waa shayga guri kasta oo Soomaaliland lagu isticmaalo lacagta ku baxaysa daqiiqdaasina tu dibadda inooga baxda weeyaan haddii waxba aan diri kari weynay bal haddii aan abuuro wixii aan soo iibsanayna waxaan kaga maaranno waa horumar weyn waxaan rajaynayaa in ay door weyn ka ciyaarto warshadani dhinaca daqiiqda wasiirku uu mahadsan yahay kelmadda wanaagsaneedu yiri horta waxaan hambaliyeynayaa Cabdiraxmaan iyo tiimkiisa ka soo socodsiiyay warshadan ra'yi iyo riyo kaga soo socodsiiyay maanta halkaas oo gaarsiiyay waata aynu aragno in dhismihii dhismay intiisii hoose waxaan rajaynayaa si dhaqso badan in warshadu u dhaqaaqdo qalabkii loo keeno ay wax soo saarto waddankeenu maanta wuxuu u baahan yahay waa saddex shay in shaqo la abuuro in wax la soo saaro inaynu yarayno waxaynu dibadda ka keenayno warshadan iyo warshadaha kale daba socda taasay buuxinayaan waxaanan soo dhawaynaynaa in dadka kalena ku daydaan oo ay warshada bilaabaan oo ay isku tagaan qof qorhii ma samayn karo wax walba laakiin dadku hadday isku tagaan oo qof walba in yar soo gashado buuraynu dhaqaajin karnaa insha Allah warshadan waxa warshadaha kale kaga duwanaysaa waxay doonaysaa wixii lagu warshada laga shaqeynay halkii dibadda laga keensan lahaa in wadda gudihiisa laga soo saaro oo beerareedii la dhiirigeliyo oo beerareedii beerto maxaa qamadiguna waddankeena uu ka bixi karaa horena waynu beer jirno sidoo kale waxa goobtaasi ka hadlay shaqaalaha gacanta ku haya dhismaha warshadaasi waxa ay warshadani dooratay inay deegaankan degto waxaana ay ku dooratay laba arrimood mid waa u dhawaanta ay u dhowdahay highway-gii waddanka galbeed iyo bari isku xidhayay oo halkan agteena maraya dhiskii meel ku haboon oo lafa oo dhul aan dilaac iyo waxba keenayn ama hadhow matoorada waaweyn marka la keeno gariirkii horta shirkadda aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa wax qabadkeeda iyo sida fiican ay meesha u timiday annaguna aad baan ugu hambalyeynaa dhismaha warshadani oo la filayo inuu dhamaado bisha September ee soo socotay sanadka 2019 ayaa hadda waxa dhamaaday wajigii koobaad ee dhismaha asaasiga waxaana hadda bilaabmaya qaybaha ugu muhiimsan ee warshadu ay ka koobnaanayso gaar ahaan qaybaha xadiidka oo ay sameyn doonaan khubaro ajaaniba sida uu telefishinka Home Cable u sheegay maamulaha guud ee shirkadda Boundary Mills Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Nuur oo ajnabi ay noo iman doonta oo inaga caawinaysa in dhismaha xadiidka qalabaynta warshada iyo dhismaha haamaha intaba waa mashruuc la wada leeyahay weeyaan oo sanad ka hor bisheedii iyaanu magaalada Hargeysa aanu kaga dhawaaqnay in mashruucankana la hirgelinayo run ahaantii maanta waxaanu maraynaa ilaa 400 oo qof oo dhadhow dadka Soomaal gashaday shirkadda oo qoomiyadda Soomaaliyeed meel walba ah anagu iyo shaqaaluhuna waxaan u shaqeynaa waa saamileyda weeyaan hadduu ilaahay yiraahdo imika waxa soo socda qalab fara badan oo dekada berbera ka soo degi doona marka horta hawshu saas inoogu socotaa beerihii durba tijaabadii waanu bilownay oo imika way socdaan oo deegaanaanu maalgelinay way jiraan de warshadana waa loo baahan yahay fara badan badana anigoo yar kaftan ku daray dadka reer Muqdisho ay yiraahdaa saamiga miyana loo ogol yahay cid walba loo ogol yahay hadday noqoto Somaliland Soomaaliya Djibouti Boundary Mills baad tagi kartaan halkaas aad macluumaad ka qarsan kartaa dabadeedna waaxda maalgashiga dad soo dirtaan macluumaad idinkoo doonaya waa idin soo jawaabi dhismaheedu wuxuu dhamaan doonaa ilaa bisha September ee 2019
sanadka dambe dabayaaqadiisana wax soo saarkeeda ugu horeysay daqiiqda ah ayaan rajaynaynaa in suuqa ay taalo daqiiqun maaha waa calafka xoolaha laftiisa uu ku jiraa haddaynu taariikhda dib u xusno 2015 xoolaha Soomaalida badankeedu waxay ku baaba'een abaaro oo dhaqaalaheena u lafdhabara heer waxay gaadhay karaatoonta iyo warqadaha suuqa inta la googooyo la siiyo oo la yiraahdo inay waxun ka hadhaan Cabdishakuur Dayib Maxamed Home Cable TV Hargeysa